السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأعزاء وعودة إلى عالم الإنترنت. وحان كسو لابنا إن شاء الله تعالى عالم كإنترنت لكن ما أنت وحان كهدلينا إنترنت كنفتيس أيان ربعين كهدلو إيو dhibaatooyinka uu yeelan karo iyo hadduu wanaag jiro wanaagga uu yeelan karo iyo marka horeba in la oran karo waa silaax duu xadayn waa bir laba af leh. haddaba waxaan rabaa inaan kuu soo bandhiga maanta wasiya dardaaran uu u dardaarmay qof aabba ah oo xakiim ah ee ilmihiisa wiilkiisa iyo gabartiisa. dardaarankaasaan rabaa inaan aniguna siiyo walaalahay oo dhan naftayda aan kow siiyo. qofka ugu baahi badan mawduucan aan jeedinayo ikhwaani waa aniga idinka hortiin intaan la gaadhin. thumma waa dadka muslimiinta qof kasta oo muslima baa u baahan qaabka uu ula dhaqmi lahaa internetka iyo caalamkan maftuuxa noqday ee wada furan teknolojiyadan casriga ah iyo adduunkan qaryada iyo uu noqotay hal tuulo bal qaabkeed ula dhaqmaysaa inaynu wax iskaga baraarujino. waxaan marka warka ku wadi doonaa wasiya iyo dardaaran. dardaaranku wuxuu ka kooban yahay 11 qodob buu ka kooban yahay. 11ka qodob waa dardaaran wanaagsan. runtii qofba muslima ayaa kolba soo handaseeyay laakiin wixii khayra marka la arko waa la soo qaadaa. anigu ma aanan fikir ahaan umaan keenin laakiin waxay xikmad fiican oon helay laakiin aan inaan af Soomaali ku soo tarjumo dadkaygana u soo gudbiyo aan goosto insha Allah ta'ala. aabbaani wuxuu leeyahay wiilkaygiiyow waxa la yiraahdaa Google-ka iyo Facebook-ka iyo Twitter-ka WhatsApp-ka Fiverr-ka Snapchat-ka iyo dhammaan mareegaha iyo waxyaabaha la adeegsado social media la yiraahdo waa bad camiiq oo dheer. bad aad iyo aad moolkeedu u dheer yahay weeye. waxaa ku dhumay waa dardaarankii ninka xakiimka ah waxaa ku dhumay akhlaaqdii ragga. waxaa ku dayacmay caqligii. waxaa ku dayacmay dad waaweyn iyo dad yaryar intaba. waxay liqday moolkaasi xitaa gabdhihii yaryaraa ee dhalinyarta ahaa ee weli aan guurka gaadhin. baddaasi wax badan oo ka mida bay liqday. wuxuu kula dardaarmay marka ninka xakiimkii wiilkiisa waxaan kaaga digayaa faxdar xadaari waxaan kaaga digayaa inaad atawawula fiihi hoos inaad u gasho ayaan kaaga digayaa. dardaaran muhiima buu siiyey. wuxuu yidhi wiilkaygiiyo waxaad noqotaa ka naxla sida shinnida baasha la yidhaahdo. shinnidu waxay ku dhacdaa keli oy ku degtaa wax dayib oo fiican. bal u fiirsada waxa la yidhahdo flowerska iyo ubaxyada iyo meelaha udgaya bay shinnidu ku degtaa. marka noqo buu yidhi sida naxladaas oo wixii fiicaneed aragto oo adiga naftaada iyo dadka kaleba anfacaya ka qaado safaxaadka iyo beejajka aad dhex marayso. waa wasiyada labaad iyo dardaaranka labaad. wuxuu yidhi wiilkaygiiyow ha noqonin laa takun ka dhubaab sida daqsiga ha noqonin ama daqsi ama duqsi ama dixsi dadka qaar ba waxay yidhaahdaan ha noqonin daqsi oo kale oo isagu ku dhaca wax xun iyo wax fiicanba isagoo dhex fadhiyaad arkaysaa. daqsiga isagoo qurunka dhex fadhiyaad arkaysaa. isagoo wasakda dhex fadhiyaad arkaysaa. wuxuuna soo naqlinayaa aljaraahiim waalamraad min duuni an yashcur. waxyaabaha xunxun ee jirooyinka ah buu keenayaa daqsigaasi isagoon isagu is-ogeyn buu keenaa. marka kaana iska ilaali buu yidhi. waa dardaaranka saddexaad. wuxuu yidhi wiilkaygiiyo u fiirso internetku waa suuqun kabiir. waa suuq aad u weyn weeyaan. waa aswaaq xorra ah. waa meel weyn oo aad u weyn weeyaan. qof walbana wuxuu keensadaa silcadiisa iyo alaabtiisa wuu keensadaa. alaabtaasna ogaada majaan majaan waa bilaash. wax bilaasha suuqa weyn lama soo dhigo. dadka qaar waxay rabaan muqaabil. nin walba marka wuxuu rabaa muqaabil inuu waa bedel inuu wax kaa soo galo. suuqa markaad soo bandhigto alaabbaad keensatay alaabta waa inaad wax ka hesho waa lagama maarmaan. waxaa ku jira dadka qaar doonaya marka inay akhlaaqda dadka kale ay fasahaadiyaan.
waxaa ku jira qaar fikirkooda xun ee guracan soo bandhigayo ummadda kusoo waxaa ku jira qaar iyagoo shuhri iyo caan un inay noqdaan ka raba waxaa ku jira dad muslixiin oo raba inay wax hagaajiyaan baa ka mid ah wuxuu yidhi marka adigu waxba suuqa ha ka gadanin ilaa inaad iska baarta ma ogi wax walba iska baar ma sax ma fiican yahay daydkiisu ma dhacay taariikhdiisu alintaaj walintihaa goormuu soo baxay goormuu dhacaya waxaa iska hubi dardaaranka afraad wuxuu yihi wiilkaygiiow waxaad ogaataa internetku waa ama linkigan waxyaabahan aad aragtay ee rawaabita ee laysu soo diro linkiyada laysu soo diro oo mararka qaar haddaad furto waxaa weeyaan waa meel lagu baabacayo waa meel lagu dhaco oo maaragtay dhibaata kaaga soo baxaysa shar baa dhex fadhiya soomaalida arag marka qaarkood waxyaaba virus oo inta lagu soo diro hal mar haddaad furto adiga dhan ku baabi'inaya oo internetkaaga iyo computerkaaga kaa baabi'inaya marka waa tadmiir oo wax waa tadmiirul akhlaaq bay marka waxaan akhlaaqdii ayaa ku burburaysa wuxuu yidhi dardaaranka shanaad wiilkaygiyo iska ilaali inuu noqdo internetku meel ishaacaadka propagandada iyo waxyaabaha xunxun aad ku faafiso iska ilaali oo kale wax intii la jarjaro ama suurada dadka iyo sawirada wada aragtay intii dadka la isku soo jarjaraa la isku diraa markaasa halka ummadda laga daba qaataa ama wax markay noqotoba qoraalkii intii wax lasoo kakaba ayaad moodaa karmo qoraal ahaan markaasaa iska dhiga aduu wax qoray umuurahaas iska ilaali buuri wiilkaygiyo wuxuu yidhi oo kale wiilkaygiyow inta aadan wax qorin ee commenti aadan bixinin oo tacliiq aadan wararka dadku soo qoreen aadan saarin ka fikir horto arrintaas waa muhiim ikhwaani waa layna weydiin doonaa ilaahay wuu ina warsanayaa annaga maanta waxaa weeye qof baa raba inuu wax qoro markaasaa comment la iska saarayaa waan jeclahay ee waa fulaan good waa mahadsan tahay waa kan qof kale wuxuu leeyahy waa xun tahay waa horta waxaan hawla jeedin intibaacaaga iyo adiga maaragtay ee dareenkaaga keliya ha ku jawaabine waxa aad dhahaysaa ma saxbaa mise dad baad u jiibinaysaayo been baad sheegaysaa marka iska hubi waxa intaadan wax qorin ka fikir wax uu anfacayo allah raali gelin hadduu yahayna samee haddii uusan allah raali gelinaynina ka har wuxuu yidhi wiilkaygiyo dadka sadaaqadooda qof aadan arkaynin balu fiirsada oodan indhahaagu arag oodan aqoonin ha isku halaynin saaxiibtinimadiisa maanta inaga waxaa internetka waxaa leeyahay qofku intaasoo friends baan nahay saaxiib baan ku leh internetka friends tira badan baan haystaa marka dadkan dadaa taqaana ma ogid waxay yihiin hana xukumin dadka waxay qoreen keliya ha ku xukumin yani waxaa laga yaabaa qof baa qoraal fiican maalin walba kuu soo geliya wax fiican baa aad ku aragtaa meesha yani min khilaali qoraalkiisa keliya ha ku xukumin wuxuu yidhi suurooyinka oo aragtay facebookyada sawir baa lasoo saartaa waxaa laga yaabaa sawir aan qofkiiba ahayn oo qurxan oo kale in laguu soo saaro akhlaaqdii waxaa lagaaga dhigi mid fiican baa lagaaga dhigi kelimaadka ereyama macaan baa laguu adeegsan waxaana suuragala qofkaasi inuu yahay xitaa wadar dad diin sheeganaya oo iska dhigaya rijaalu diin iyo dad culimaa inay yihiin oo sufaha iyo qaab noocaas u dhaqmi baad mararka qaar arkaysaa waxaad arkaysaa dad iyaguna ka dhigaya inay maaratay wax fiican sug oo aqbaxul qabaa'ix keenaya qof iska dhigaya inuu yahay kariim iyo qof deeqsiya oo dadka ugu bakhaylsana qof iska dhigaya inuu yahay shujaac iyo geesi oo dadka ugu fulaysan waxaas oo dhan ilaa man raxima rabbuhu waxay ku wada jiraan halkaana laga helaa suuqan weyn ee internetka baa laga helaa wuxuu yihi wiilkaygiyo arrinta 7 mise 8 waa arrin inoo jirna ka digtoonow al asmaa al mustacaara magacyada la soo ergisto ee adugu aadan lahayn iska ilaali maxaa jira u fiirsada qof baa magac qoranaya aan jirin abuu hebel buu qortay abuu fulaan ama ummu fulaan oo kale maalan ama magac kale oon bakaagii ahayn buu qoranaya ruuxaasi waxa weeye saaxiibkaasi laa yahiquuna fi anfusihim waa qof aan naftiisa aan ku kalsoonayn magacii lagu bixiyey aabbaha kugu wanqalay iyo hooyadaa buusan qofku ku kalsoonayn sideed marka adugu kalsoonaan kartaa qofka isaga iska ilaali magacaadan lahayn inaad soo caariyeysato ilaahay baana og fi sirri wal akhfa yani waxyaabaha qarsoon ina rabbi baa subxaanahu wa tacaala ka warqaba wuxuu yidhi wiilkiigaygow dadka ha aflagaadaynin qofka ku aflagaadeeya u fiirsada arrintaa qofka hadduu xitaa adiga wax kaa sheego adna ha u jawaabin maxaa jira fa anta tumathilu nafsaka wahuwa yumathilu nafsahu
والله هذا الكاس وهذا العجب يا إخواني يعني قف بعديك كو وسخينيا adigoo qof fiican ahaabaa lagu wasakhaynaya marka qofka hadduu wax kaa sheego ninka wax sheegay naftiisu matalaya akhlaaqdiisu matalaya adiguna akhlaaqdaadaad matalaysaa marka matiisii baad marka ku dayanaysaa oo wadadiisii ma ka daba qaadaysa wa kullu inaa'in bima fiihi yandaxu way carabtu yidhaahdaan weel waliba wuxuu dhididaa waxa ku jira haddii wadartay oo bakeeri ama koob aad baraf aad ku shubto gudihiisa banaanka waxaa imaanaya barafkii iyo qabowgiibaa uga soo baxaya haddaad kubaayad shaaha ama shaaha aad koob ku shubtana kulaylkiibaa banaanka wa kullu inaa'in bima fiihi yandaxu wax waliba wixii ku jira ayuu ka imanaya wuxuu yidhi wiilkaygiiow waxyaabaha aad qorayso dooro erey fiicanna qor malaa'igta ayaa iyaguna kula qoraya والله تعالى من فوق الجميع يحاسب ويراقب الله بانا إن قصر رأيه وإسنا سي مراقبين يو أمورتا إيضا فيرنا يسونا وحولي ويل كيجيو وحا وعب سبادنا هاي بدا إنترنتكا وإناد فيرستو وحيابا حارامتا إيو كليبيادا الفجور كي يفسقا حنبارسان إلا سوقلين أيو حدي مركا أفرسو قف والبو naftaada haddaad aragto iyada oo gudbaysa waxaan xunxunkaa dhaafaysa oon ku hakanaynin haddii aad aragto way roon tahay ee ka faa'iidayso waxa fiican naftaada iyo mujtamacaaga iyo bulshadaadaba uga faa'iidee haddii aad aragto laakiin naftaadu iyadoo muraawaqo ku samaynaysa oo sida dawacada daba wareegaysa laqataadka xunxun iyo fujuurka iyo kilibyada xunxunka raadsanaysa haddaad aragtay muxaramaadka fahrub min dunya internetka adduunkiisa ka carar isaga dhanba sida libaaxa looga carar maxaa jira ikhwaani mathwaaka sayakunu mathwaaka wuxuu noqon doonaa naar buu noqon doonaa haddaad xumaanta ku socota wasayakunu khasmuka gadan mawlaaka subxaana qofka kula doodi doonana aakharo waa allah subxaanahu wa tacaala marka uma tabarhayside haddaad aragta naftaada aduu isxukun internetka caawa soo gashay waa fiirsanaysaa soo maaha haddaad aragta naftaadu iyadoo kilibyada xunxun raadsanaysa waxa qaawan iyo kuwa noocaasa ugaarsanaysa haddaad aragto war meeshaan ka carar iskaga carar haddaad aragto iska xir internetka dhan iska xir facebooka iska xir haddaad aragto adiga oo gudbaya oo isdhaafinayo oo wixii markay indhuhu ku dhacaan gudbayana waad roon tahay ummadda uga faa'iide gabagabadii wuxuu ku gabagabay wuxuu yidhi yaa bunay wiilkaygiiow min ahami madaakhil ashaytaan u fiirsada shaydaanka meelaha uu ka soo galo dadka waxa ugu badani waa alghaflatu washahwa waa xaqiiqo labada arrimood alghaflatu washahwa waa halmaan iyo shahwad internetkiina labadaasi waa labada tiir uu ku taagan yahay wey ilaahay amarkii labada tiir uu ku taagan yahayba waa inuu wax ku halmaansay maalin dhaweyd baan arkayay walaalo qoraal yar soo qoray runtii wuu aad buu u fiicnaa oo ka hadlaya saacadaha 24 saacadood meesha ay ku baxdo ee aad leedahay marka qaabka u xisaabiyeen waxaan filay inay ka dhigaan dhowr iyo 10 saacadood inuu qofku shaqeeyo kana inay طبعا ka yaraatay ahayd intaas laakiin waxay siiyeen 6 saacadood media inuu ku dhex jiro qofku waan isleeyahay dad badani 6 saacadood iyo ka badan bay ku bixiyeen media okay haddaad ku laabato cimrigaaga oo dib u xisaabiso oo 60 sano inaad jirto aad ka soo qaado sidee buu u kala baxay cimrigaagi haddaad 8 saacadood aad seexato 60 sanana aad jirto 20 sano halka ku baxday sida moogta horta waxa ku soo haray waa 40 wuxuu noqonayaa sano ayay noqonaysaa 8 saacadaad shaqaynaysayna 20 kala halka ku baxday moogtahay 40 saac ku tagtay 20 baa ku soo haray طيب haddii aad cuntadii celcelin ahaan 3 saacadood habeen iyo maalin iyo wax la isku daray ay noqoto waxaan jeedaa nus saac ay noqoto taqriiban 3 saac bay noqonaysaa haddaad xisaabiso haddii la isu wada geey sibahaaga iyo dhalinyaranimadaadiina 15 sano inaad caruur ahayd ka soo qaad cimrigaagii 60 haddaad hadda ila xisaabiso 2 sano soo haraysa ama 3 sano soo haraysa 20 hurdo u go waa sidaa sax waa sidaa way 8 saacadaad seexato 20 waad hurday 20 kambaniga aad ka shaqaynayso oo kursi baad ku fadhiday 40 ka baxday 15 sanana waxa weeye caruur baad ahayd waxba laguma dirsanaynin 3 sanana cuntaad cunaysay yani isku dardarkeedii nus saacadii la xisaabiyo meeqa soo hadhay dadkii xisaabta yaqiinay waxaan filayaa ama waa 2 sano ama waa 3 sano hada huwa cimruk
cimrigaaga waka marka alghafla 6 saacadood hadday ku baxda ka waran internet iyo facebook iyo caawa waxaad ku dhex jirto iyo snapchat iyo balaayada lasu soo diray marka qof walbowba ghafladaasi waa midaas iyaduna kharibaysa waxaana internetka runtii yahay faa'iidadiisu inuu yahay saan ku bilowna silaaxdu xadayn waa bir laba af leh uga faa'iideyso khidmada naftaada iyo muslimiintaba laakiin adiga yuusan ku istikhdaamsanin oo yaan lagu adeegsanin mid ku dumiyana yuusan noqonin xujana yuuna ku noqonin adiga xujaha ku noqdo nas'al allah alhidaayata waltawfiiq ilaahay baa waxaan weydiisanaynaa hanuun iyo inuu nawaafajiyo khayrka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa idinka hortiinba inuu aniga igu anfaco idinkana uu idinku anfaco kelimadeedana uu ka dhigto kelimad naafic uu ka dhigo wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu